وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى أيا مهد إسكاله مهد أرن إلهي نوافجي حق طاعديسة nagana dhigay ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. si kastaba ha ahaato, waxay ila tahay ummadda weli waxaa ku taagan murugyadii iyo tiiraayadii shiiqa. haddana waa maqlaayay in dhowaan shiiqa la aasay, laguna aasay buqco ilaahay midda ugu fadliga badan uguna qiimaha badan, umulqura. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa shay uu ku karaameeyey shiiqa. ogaada qof kasta oo ilaahay howl u haya subxaanahu wa tacaala, bishaarayso qof walboo ilaahay howshiisa ku mashquulsan, dhib kasta ku jir adduunka, rafaas kasta ku sugnow, ciribtaada khayr buu ku dambaysii doonaa subxaanahu wa tacaala. waxay noqonaysaa ciribtaada meel khayr u dambaysa. fa nicma cuqba daar buu ku celceliyaa ilaahay subxaanahu wa tacaala. bacdamaa sidaa ay tahay, in badanna laga hadlay, qof kastana uu garan karo fadliga caalimka uu leeyahay, ninka ilaahay u shaqeeyay khayrka uu leeyahay. ilaahay muxuu ku karaameeyey subxaanahu wa tacaala baytullahi alxaraam in lagula tukado sheekh cumar alfaaruuq raximahullah. salaad cisho ka gadan in lagula tukado beydkii ilaahay subxaanahu wa tacaala. xaramku muxuu yahay? xaramka qiimaha uu leeyahay maxay la eg tahay? kacbada ilaahay qiimaha ay la eg tahay maxay gaarsiisan tahay? walaalayaal, ka warrama qofkii madax ahaa, ka warrama qofkii mataqaanaa qabiil ahaa, ka warrama qofkii inta dhintay lagu aasay muusig iyo turumbo oo la yidhi waxaa lagu aasay qubuuraha qaranka, oo markii la aasay kadib ubax inta lasoo qaaday dusha laga saaray fiideo ayadoo saa markaa looga duubayo. subxaanaka yaa ilaahay, hoos maxaa ku jira, korna maxaa ka dhacaya? hoos maxaa ku sugan, korna maxay dadku samaynayaan? qofka inta janaasadiisa beydka ilaahay la geliyey subxaana wa tacaala, imaamka xaramka uu imaam u noqday, ummaddii musalliinta ahaa ee ku tukanaysay beydka ilaahay ay gadaashiisa ku tugteen, oraahdoodu ay tahay allaahuma kfir lahu waarxamhu wacaafihu wacfu can waakrim nusulah wawasic madkhalah waabadilhu daaran khayran min daarihi wa ahlan khayran min ahlihi. ilaahay ay ka baryayaan subxaana wa tacaala 40 qofood oo muwaxidiin ah ninkay u marqaati kacaan ama ay janaasadiisa ku dugtaan waa ahlu janno ayuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. walaalayaal, yaanan noqonin arigii inta waraabaha soo galay mid inta uu kala baxay kala yaacay oo dhagaha kor u wada taagoo la baqayoo la cabsaday, daqiiqada markay ka soo wareegtayna daaqoodii iska galay. waad fahmi kartaan saxan ula jeedo tacbiirka noocaas ah, waad fahmi kartaan tusaalaha aan ka wado. yaa la noqonin ari inta meel daaqahayay inta waraabo ku soo baxay, mid buu kala baxay, maxay sameeyeen? way kala yaacayaan, mid kasta kor buu eegayaa, daqiiqado fara badan cooska cuni maayaan, dhagaha kor bay u taagayaan. laakiin daqaa'iq ka bacdi waxaad arkaysa ayagoo iloobay, ayagoo iska hilmaamay, ayagoo mid kasta coos cunitaankiisii markaa iska galay. inna fii daalika la cibratan liman yakhshaa, cibray u tahay qofka markaa cabsanaya. shiiqa ma noo waari lahayn, ilaahay baa ballan qaaday subxaana wa tacaala. ballanqaadka ilaahayna waanu ku kalsoonnahay subxaana wa tacaala. innaka mayitun wa inahu mayituun, nebi moxamed baa lagu yidhi sala allahu calayhi wasalam. laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala
qof kastow ogow haddaad howl u qabato, haddaad shaqo u qabato inuusan ku ilowsanayn. liiskiisii baad ku qoran tahay. nebi luud aalkiisii magaalada inta deganayd oo dhan gurigiisuu ka eeganayay ilaahay subxaana wa tacaala. famaa wajadnaa fiiha gayra beytin min almuslimiin buu yidhi ilaahay. markaan dusha ka soo eegnay guri muslim oo asaga aan ahayn kama aanan arkin. ilaahay agtiisuu ka liisgaraysnaa subxaana wa tacaala. war beydkaaga ha noqdo beyd ilaahay la socdo, war aqalkaaga ha noqdo aqal ilaahay la socda subxaana wa tacaala, agtiisa ka liisgaraysan. xaaladdu saasay ku wanaag badan tahay. shiiqa ilaahay baan oga baryaynaa su'aalaha inuu u fududeeyo. ilaahay idinkii waanana rajaynaynaa. istakfiruu liakhiikum. mayd marka la aaso war walaalkiin dembi dhaaf u weydiiya buu oran jiray nebiga. fa innahu al'aan yus'al. haddaa su'aal la weydiinaa. meesha waa cidlo, qof joogta ma laha, qalin iyo buug ma loo keenaayo, wax meesha kaar ka hayaa ma jiro. qofkii iyo malaa'igta su'aalaha weydiinaysaa loo kala dhex baxayaa. sakaraadkii ilaahay wuu badbaadiyey subxaana wa tacaala. su'aalihiina iminkan wuu gudbay subxaana wa tacaala. ilaahay xaggiisa khayrka iyo wanaagga uga rajaynayno. waxaan rajaynaynaa oon in badan ilaahay rajo ka qabnaa subxaana wa tacaala, kana barinaynaa, kana codsanaynaa ilaahay. waxaanana ku weydiinaynaa qalbi khaalis ah inuu qabriga waasic uga dhigo. madda albasar, inta indhihiisu ay gaaraan shiiqa. waa indhuhu noo kala furay, jahliguu naga bixiyey. tafsiirka qur'aanka oo aanan garanaynin ayuu macaanadiisiina tusiyey. ilaahay baa tusin doona macaanka jannada ilaahay idinkii subxaana wa tacaala. in badan walaalayaal aan baraarugno. shalaysaan ahayn maanta yaanan noqonin. haddaan kafla ku jirnay aan soo celina wacyigii iyo garaadkeena. haddaan tumin jirnay aan kitaabka alla u soo laabano subxaana wa tacaala. haddaan adduunka wada raaci jirnay waqtiyadeena gobol ka mida aan qiyaamaha ka siino. qofkii wanaagsanaa oo qiimaha badnaa oo sharafta badnaa haddii sakaraadda dhaminayo, haddii qabri la dhigaayo, ilaahayna agtiisa khayr looga rajaynayo, annaga xaalkeena see noqon doonaa? annaga arrinteena xaggay ku dambayn doontaa? annaga xaalkeena sidee noqon doonaa? qisaa waxay tilmaantaa cumar ibni khitaab ayaa mar allaala markii uu dhintay kadib 40 miya ma aqaan dhowr wakhti ah ayaa riyo lagu arkay. ka waran baa la yidhi, maxaad la kulantay? maalintaad isoo aasteen buu yidhi. maanta ayaan ka soo faaruqay su-aashii laygu bilaabay. maanta ayaan ka soo faaruqay waxyaabihii iyo xisaabtankii. ileen lamid ma aha dadka waa madax, lamid ma aha dadka waa amiiruulmu'miniin, lamid ma aha dadka ee wuxuu la kulmayaa dadka kale waxyaabaha ay la kulmin. maalintaas ka soo bilow ilaa haddaan is arkayno, hadda ayaan ka soo faaruqay. walowlaa nicmatu rabbii, nimcada ilaahay ayaana ku soo badbaaday buu yidhi. baa ka badbaadi lahaa buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam. sacd ibni mucaad ayaa ka badbaadi lahaa haddii jiri lahaa axad ka badbaada damigiisa iyo isku imaantankiisa iyo mashaakilkiisa iyo dhibaatadiisa iyo waxyaabaha adag ee markaa ku dhex sugan. axad uun hadduu kori lahaa, kaabaa kori lahaa. axad hadduu badbaadi lahaa, odaygaa sayidka ahee si fiican u soo dhoweeyey magaalada madiina nebiga ee dadka in badan uga cabsan jireen ayaa ka badbaadi lahaa. sidaa darteed waa ninkii ilaahay uu ku tilmaamay ama nebiga uu ku tilmaamay geeridiisii ihtazad carshuraxmaan, waxaa la ruxday raxmaanka carshigiisa. allaha raxmaanka carshigiisa wuu ruxday maalintii uu dhintay. waa kow.